qurxamo libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn kula wanaagsan dhegeystayaal waxaan ahay Zikriya Xasan Maxamed waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tusmada sharciga su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda dib ma kala kulantay helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray ma jeclaan lahayd in laga caawiyo ama lagala taliyo haddii ay jawaabtu tahay haa fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho. tusmada sharciga waa barnaamij awoodsiin iyo horumarin baa u ah bahda jecel dhiganaysa cilmiga sharciga iyo qanuunka. bahda dhiganaysa cilmiga sharciga iyo qanuunka ayaana sidoo kale barnaamijka nagala qayb gali doona marka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tusmada sharciga. tusmada sharciga toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa habraaca kiisaska caruurta aan qaan gaarin. mowduucan waxa uu diiradda saarayaa in la fahmo waa maxay astaamaha lagu yaqaano kiisaska caruurta aan qaangaarka ahayn, sidee ayay laga maarmaan u tahay in hay-adaha amniga, booliska iyo wixii la midka ah in ay ula dhaqmaan caruurta aan qaangaarka ahayn. martida barnaamijka waa Cabdullaahi Aadan Shire. waxaad su'aashaada inoogu soo hagaajin kartaa taleefan nambar eber 696224 waa tahay dhegeystayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tusmada sharciga. waxaan jeclahay intaan gudaha ugu barnaamijka inaan xuso asxaabta nagala qaybgalaysa oo kale ah Cabdiraxmaan Maxamed Cali iyo Maxamed Cabdi Ibraahim iyo Faaduma Xaamid Ciise. adigu dhegeystayaal ku soo qaybgali kartaa ciwaankan ah habraaca kiisaska caruurta aan qaangaarin adigoo aragtidaada ama su'aal wixii kaaga baxa noogu soo hagaajinaya nambarkeena waa 196224 ugu horreyn waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo aqoon Cabdullaahi Aadan Shire si uu inaga iyo idinkaba faahin inooga siiyo waxa uu ciwaankani si guud ugu saabsan yahay. Ustaad soo dhawo. bismillaahir rahmaanir rahiim. Zikriya waa mahadsan tahay. runtii waa ciwaan muhiim ah ciwaanka galabtana hor yaalla oo waxaan ka hadlaynaa asaaska bulshada oo qof kasta wuxuu soo maray jay marka waa meesha laga soo bilowdo marka waxay u baahan yihiin cinaayo gooni waxaan filayaa mowduucii naga horreeyay waxaan ka hadlaynay wuxuu ahaa dadka baahiyaha gaarka lahan ka hadlaynay qayb bay ka ahayeen carruurta marka la fiirinayo waayo baahiyo gaar ay leeyihiin oo si gooni la rabo in loo taxliiliyo. marka caruur waa qof kasta oo aan caqligiisa awoodiisa aan ku meel mari karin oo ka dhiman yihiin koritaankiisii majoorkii aan weli gaarin ayaa waxaa la yidhahdaa waa caruur qofkaas weyn xataa marka qofka xataa dadka ay rabaan inay hoos u dhigaan waxay leeyihiin caruur qalbiga caruurkii yacni garashadii wuxuu kala mid yahay caruurtii. marka caruurta laga hadlayo marka waa dadkaas soo korahay oo soo socda aan weli soo gaarin heerkii ayagoo ismaamul lahaayeen ama wax qabsan lahaayeen ama isdifaaci lahaayeen ama ay garan lahaayeen ficilka ay samaynahayaan ma wanaagsan yahay ma xun yahay. taas marka waxay keentaa in wixii ka dhacay marka la dhaho ma dembi ba mise dembi ma oo su'aal baa ka iman laana ma kala oga oo ma oga waxaan u qaadahayay shaqada sameynahayay falkan ka dhacayay inuu ama asaga ciqaab u keenayo ama islaam ahaan in aakhira loo qabsanayo haduu isleeyahay xataa ma oga wuxuu yahay ma oga takliif ma saarna. islaamku wuxuu yiri rafa'at al-aqlam an thalath rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiis ku yiri yani saddex waa laga koriyaa qalin waxaa kamid ah qofkii yaraa ilaa uu qaangaaro oo kala garto waxa uu sameynayo qofkii hurday ilaa uu soo toos jaasoo hurdo wax ka dhaceen oo hadlo oo wax sameeyo xaaskiisa furaxata yani laba qabanayo iyo qofkii waalna xaskiisiiba uu soo joogin saddexdaas waxba looma qabanayo yani waxba laga ma qorayo wixii ay sameeyeen actionka ay sameeyeen ficilka ay sameeyeen waxay ku dhaca weey laba qorayo oo looma xisaabinayo. dunidan marka maanta la joogo يعني dadku nature bulshooyinku way kala duwan yihiin يعني waxa laga yaabaa age kana laftiisii waa loo kala duwan yahay qaan gaar ba mise ma ah question baa ka saar hatta culimada fiqiga
baa ku kala duwan oo fiqiga shaafici waa 15 xanafiyadu waa 18 waa takliif iyo qofkaan mas'uuliyaddan ma qaadi kara islaamku markuu agoonka ka hadlayo wuxuu saaraa waajibaadka ilaalintiisa iyo korriimadiisa iyo xanaanaynta hantidooda wuxuu saaraa cidda ugu dhow oo aqribada u ah aabihii awowgii dhalay aabaha dhalay walaalaha weyn hadduu jiro adeerka hadduu jiro si habba isugu xigaan ayay mas-uuliyaddaas u wareegaysaa marka islaamka mas-uuliyadda wuxuu saaray habba ciddii gaadhiyaan noqonaysa oo mas-uuliyadda qaadaysa oo qofkaas takliifka marka loo yimaado marka islaamku kuma shardin qofka inuu qaangaaray keli haddana waxaa la yiri waa in la jirbo oo la ixtixaamo inuu qofkan mas'uuliyaddan ka soo bixi kara ayaa in kale marka laga hadlayo mas'uuliyaddii lagu wareejiyo hantidiisii yani uu qaangaaray marka culimada markay qaangaari ka hadlaytiisii waxna waa waajibaad oo fuulay cibaadaadkii waxyaabihi waxna waa takliifkii iyo waxaan responsibility qofkan ma qaadi kara ma ogi waxaan ma loo wareegi kara markaas waxaa la yiri waa in la hubiyo haddii la hubiyo oo rushdigooda la hubiyo aqligooda inuu saxiix yahay la hubiyo oo maalkan iyo waxaan hantidan lagu mas'uuliyaddan lagu wareejiyay dayacna la hubiyo lagu wareejiyo wadamada marka modern state waxa la yiraahdaa ama dunidan maanta sida loo shaqeynayo yani xuquuqul insaanka marka laga hadlayo waxa laga hadlayaa caruurta noocyar badan bay dhibaato ugu dhacaan ama ayaga fal ku dhacaya inta laga faa'iideysto qoliyo ka faa'iideystaan ayay waxay gelinayaan dambiyo laga siinayaan hub u dhiibahayaan askareynayaan marka qofkii wuxuu galay jariimo galaya marka soo loo dhaqmaya marka qofkii shuruucda marka ka tag international marka intaana Soomaaliya u imaanin waxa jira xeer oo caruurta looga hadlayo convention oo lagu ilaalinayo caruurta xuquuqdooda inaan la askareyn inaan shaqo loo dirin shaqada waa la kala saaraya shaqada hadday shaqo familkooda u yahay dukaankooda oo kale ama masnuuc loo gadi kara oo ka shaqeyn kara laakiin se warshad samaysa industrial wax soo saarteen caruur ka shaqeeyo waa dambi baa laga galay canuga markaas laakiin hadduu dukaanka xaafadooda ka shaqeynayo dambi lagama gelin waa shaqada familkooda waa laakiin hadduu ku shaqeynayo industry ka shaqeynayo canugaas waxaa laga galay dambi waxyaabaha looga hadlayo ka mid waxaa ka mid ah askareyntaas abuse-kaas inuusan waxbarasho helin in waxyaabahaas oo asaasiga waxyaabahaas ayaa xeerka looga hadlaya Soomaaliya markii la saxiixayay wadamada inta badan saxiixay anagu waa dhacnay hadda 2015kii ayaan soo noqon anaga iyo Mareykan bas ka maqnay dad inta kale caadiga waa saxiix laakiin Soomaaliya oo burbur ku jirtay oo dawlad mataleysa jirin iyo Mareykanka oo aan ogolayn ururada iyo organisationada inuu hoos imaado laana markaad xeerkan ratification ku sameeyay ama qayb ka noqotid wixii ka dhashay waa lagu imaanaya yani Mareykan waxa ka dhacay inta badan caruuraha iskuulaadka lagu laayay inta badan qofka dhaxiyay marka Soomaaliya waxay saxiixday 15kii Mareykan wali ma saxiixin laakiin Soomaaliya waxay saxiixday ratification ku sameysay 2015kii age-ka marka responsibility-ga la isku qofka la saaray karo baadana la isku khilaafsan marka Soomaali nahay waxaan nahay sheekh madhab Shaafici ayaa wadankan madan maartay zaid ah oo madhabka ay ku dhaqanto inkastoo waayada dambe wadaad kasta meesha wax ka soo bartay madhabkeeda uu keenay oo ikhtilaaf badan u dhacay laakiin wadanka madhabkiisu wuxuu ahaa madhab Shaafici waa madaahibta oo marka la yiraahdo conservative yani ku adag adilada iyo xadiista diinta inta badan waaye marka madaahibta kala la fiirshay mucaamalaadka laga fiican yahay iyo cibaadadka laga soo ku fiican yahay marka fiqh Shaafici leeyahay waa 15 sano qaangaarka qofka qaangaarka loo aqoonsanayo shuruucdeena hore dhan waxa ku qoran xeerka caruurta 15 wixii ka yar ayaa waxa aqoonsanay inuu caruur yahay laakiin dastuurkeena hadda u dambeeyay oo 2012 ku meel gaarka oo ka dhigayaa 18 dastuurkaas annagoo tix raacayna haddana waxaan qayb ka noqonay heshiiskii caruurta oo maana dhehen kanagu waa caruurtana waa 15 sano oo aqoonsan oo asna waxaan ku saxinay 18 sano inuu yahay maadaama dastuurkeena 12 hadda haysanena uu dhigayo 18 sano caruurtu inay tahay qaangaarkood marka waa bulshadaas
qaybteedii ugu muhiimsanayd generationkeeda ugu muhiimsanaa oo u baahan in la siiyo tixgelin waxyaabaha maanta dunida ka dhacayana ay waxyaaba aan la koobi karin ay yihiin adoo canugaaga soo guriga jooga inta waxa laga samayn karaa yaa waxa laga gelin karaa dambiyo yani social media waxyaabahan maanta socda oo dunida maanta guri walba dhex yaala soo qofka waalidka la jooga xataa waalidkiisa laga yaabaa inuu ka warqabi karin waliba waxa ugu sii daran bulshooyinka ku nool meelahaas kale oo modernka wadamada kale canuga xataa language-ka intuu yaqaan wax walba waxa laga yaabaa Soomaaliya jooga language-da waxaan ay soo fududayn laakiin si canug waxyaabo kale ayuu baran karaa isagoo inta jooga wuxuu ka baranayaa waxyaabo aad adigu waad fahmi karin iyo haddii canug wuxuu suurtagal ah inuu ka fahmo marka waxyaabahaas waxay u hogaamin karaan canugu inuu dambiye galo marka su'aasha maanta waxay tahay marka canuga dambi hadduu galo waa canuga sida loola dhaqmaya markaas waxa laga hadlayaa qaabkii loo ilaalin lahaa oo xuquuqdiisa loo ilaalin lahaa maadaama uu yahay qof aan waxaan uu sameeyay aqriisu garanay ustaadi waa maxay marka astaamaha lagu yaqaano kiisaska carruurta aan qaangaarka ahayn ma santaas kariye kiisas korta laga hadlayo waxa weeye waa jixi dambi awa laakiin canugu ma galo waxyaabaha madaniga oo tacaamulka ah canugu ma galo kiis markuu canugu galo duroobi ka qayb qaato haduu maadar ka qayb qaato waxa xadidahay waxa weeye qofka dambigan galay ma qof majuur ah ama waa qof aan majuur ahna qof aan qaan gaarimiya ma soo qof aan qaan gaarin laakiin kiisas ka dhac waa kiisaska umada kale ay gasho laakiin waxa ka soocaya waxa weeye qofkan dambigan galay ma yahay qof yaqaan waxa ay ahaayeen asal fahmi kari mase waa dad baa isticmaalay oo waa lagu dhiiriyay oo waa loo isticmaalay lana asagoo ma og markaas wuxuu noqonayaa qof dambi ka dhacay child oo qof aan gaarin dambi oo galay waa marka haduu maadar galay haduu robbery galay markaas waxa la xadidayaa oo inuu child dambigan galay waxa yahay xadidaya qofkan ayaa waxa loo noqonayaa ma qof qaan gaarayba oo waxaan asagoo og galay mase waa qof aan qaan gaar ahayn oo dambigan galay markaas la kala saaray marka haduu qaan gaar yahay waxa loo xidhmanayaa sidii qofkii caadiga ahaa way oo dambi galay wuxuu og yahay buu galay ciqaabteeda waxay tahay buu galay og yahay yani waxa laga soo qaadayaa qofka citizen ka inuu sharciga yaqaano waxaad gashay ogtaan dambi tahay marka excuse ma laha wadan hadaa kala maanta tagtid wad tira dambi waxaan moogayna sharci ka tahay meeshan ma lagu qabanayo waad ogtahay camal laga soo qaadayaa excuse ma laha marka qofka mar haduu yahay qof weyn oo dambi galo waa yahay laakiin qofka markii la ogaado inuu yahay qof age-kii loo aqoonsanaa inuu qaangaar yahay ka yar haduu yahay dambigiina uu ka dhacay qofkan marka wuxuu u baahan yahay tacaamul gooni ah la siiyo oo la dhaho qofkan ma ahan looma xisaabi karo wuxuu u baahan yahay tacaamul gooni ah markaas wuxuu ku jiraa dambi ka dhacay qof aan qaangaar ahayn oo child ah laakiin dambigu astaamo gooni ah oo dambiyada kale uga duwan yahay ma jiraayo qofka galay baa ka soo cahaya qofkii kale yaa difference-ga sameeyay oo aan nature-kan qofkan dambiga uu ka dhacay laana dil iyo dil waa isku mid ma kala saari kartid laakiin si qofka dilka geeyay way wax la fiirinayo fuliyay qof qaangaar ah soo qof qaangaar ah Abdullahi marka wadamadan saxiixa ee heshiiskan confessionka carruurta waxaan qiyaasayaa inay ku kala duwan yihiin habka ay u maraan marka uu dil dhaco oo carruurta Mareykanka kala haddii aan qaldanayna xabsiga inta badan xogaa ilmaha la geliyaa oo u gaaray juvenile-ka ah marka arrintan ah 18 jirka qofka markuu gaaro waxyaabaha xuquuqaadka uu helayo ama waxa dhahan universal suffrage-ka codaynta kaliya ma noqonaysa mise xuquuqaad kale oo dheeri yeelanaya meeshaasna waxaa ka bilaabanaya aslanba qofka in loo xisaabiyo yani gabadh buu geysto iyo xuquuqdii maartay codaynta ku kaayd inay halkaas uga sii bilaabato mise already yani uu la sii qabsan karaa qofku marka uu qaan 18 markuu gaaro Mareykan tusaale soo qaadatay yani wuxuu ka baxayaa daa'iradii jilka 18 wixii ka horeeyay waalidkiisa lagu xisaabtamay laakiin markuu 18 gaaro guriga way ka cayrayaan xataa go out beelay looma qabsan karo laakiin haddii se ka hor ay cayriyaan maxkamad baa la saaraya maxay sameeyeen dayac marka maanku 18 gaaro waxa u bilaamaysa full authority ayuu leeyahay shaqo tagahaya dambigu gal waa lagu xisaabtamaya laakiin wixii ka hooseeya way waxa special care ka la siinaya ama xabsi gooni aan dad waaweyn lagu xirin lagu haynayo oo xabsiga inta canuga inta badan wuxuu noqdaa waa dhaqan celin
in wixii canugii laga sameeyo la wacyi geliyo loo sheego waxaan ay dambi tahay la baro waxyaabaha ku dhaw wax fiican inaysan ahayn in maaragtay knowledge la siiyo ayaa xabsiga loogu haynahay ee ma ahan sidii qofka kale xukun lagu ridayo kala ma asaga waxa la siinayaa cinaayo gooni rehabilitation way xabsiga canugida ciyaalka inta badan la gelinayo waxa leeyahay hatta dadka weyn in laga ilaasho hatta laga ilaaliyo annaga markaan maxkamadaha ka hadlayno kaliya waxa kiiskooda la dhilgaranayo gudoomiyaha maxkamadda sare oo ah waliba ayadoon public ahayn oo aan rabin in la arko oo la fahmo dhacaan gawaagi dambiga galay oo bulshada aqoonsato hatta laga ilaalinayo waa nooc si gooni ah rabaa in loo ilaasho loo dhaqmo marka xusiinayaa in gooni loo ilaaliyo dadka weyn aan lagu la xirin markastana oo waxa xoog la saarayo ugu dambeeyna ay tahay waxa asaga dantu ugu jirto maslaxadiisa waxa sharcigu leeyahay best interest yani canuga maxaa faa'iido ugu jirta waxa canuga faa'iidadiisa ayaa markasta hogaaminaya xukunka iyo wax la marsiinahay iyo haday dhaqan celin tahay haday tahay maartay siideyn waxa markasta waxa la xukumaya canugan maslaxadiisa waxa ay ku jirto ayaa priority-ga iskale mar walba oo la siinayo sidee ayay marka laga maarmaan u tahay in hay'adaha amniga sida booliska iyo wax la midka ah inay ula dhaqmaan carruurta aan qaangaarka ahayn oo maasna Zakariya hay'adaha u xilsaaran ilaalinta dambiga iyo bulshada dhexdeeda ku jira waa booliska oo qofka marka ama dambi ku arkan soo qabanaya ama xirahaya marka ay waa hay'adaha waxay sameynayaan boolisku yani lama dhaqmahayaan sidii qofkii weynaado kale meeshay ku hayeen qofka hore ku weynayaan kuma haynayaan mid marka waa inay ogeysiyaan waalidkiis waa inay wargeliyaan oo markiiba way u sheegaan canugiisa in dambiga soo ku jira la qabtay ama dambi lagu hayo yani sidii dadkii kale ma loola dhaqmahayo oo qofka inta dambiga soo waalidkiis loo baahay asaga ayaa soo raadsanay laakiin kan markiiba waa in horta family la raadsho oo lagu raadsho walaal canugan waa kan dambigaan uu galay qabtay markaasna maxkamad markuu keeno maxkamadda ayaa responsibility qaadaysa waxayna fiirinaysaa shan sheegayay best interest-ga canugan uu leeyahay ayadoo waxay sii dayn kartaa iyadoo aan waxba lagu xiran wala fasaxayso ama iyadoo shuruud ku xiran too leeyahay hadduu mar dambe waxaas lagu arko ama waxaas uu sameeyo waa la xiri doonaa waa lagu xirayaa loo caga tuleenaya ilmi loo sheegayo inuu maartay dhibaato la kulmi doono mar dambe falkaas lagu arko markaas waxa hogaaminaya marka sidii qofka kale hay'adaha amniga lama dhaqmahayaan da soo xiran asagoo dambi faraha ku jira ama ay warranty ku soo xiran markasta canuga waxa hogaaminaya oo kiiskaas uu hogaaminaya in lagu best interest ilmaha yarka u leeyahay waxaana xukminayo xukunka saaray waxa weeye qofkan ficilkan sameeyay يعني لقول ما حساب تمك ردا أنت رجعنا كل شيء هي يعني رفيعة الأقلام يعني ذاتكي يعني دو قان قارن يعني قف كان قان قار كاين ما هذي اللي روا ما قان قارن يعني على حسابها يد قف كان إنه سنفل كان وصور بوهين لكن زي مشكلات كلا أي شرته ومارتي سما يسوي واحد مركا إنه لقط نقه لوانيو مارتي ريهابيليتيشن لقى مركا حفصة أي قلق المه شروع ذا السمانة يسوى جفني تسسكو الصومالي هذا وشيء هيو وحفصي dhaqan celina rehabilitation in maarta canuga dib loo maskaxdiisa looga dhaqo wixii wax lagu sameeyay cidi maarta iyo maarta saameynta ku yeelay wixii laga bedelo malcag baa lagu siiyay canuga marka in maskaxdiisa laga bedelo waxyaabihi waxaan u liil kareeyay oo ku kiciyay in laga maarta laga leexsho way inta badan waxa loo sameeyay laakiin hay'adaha amniga mas'uuliyadooda waxa weeye in markiiba special care ay siiyaan oo iska duwan kii dadka kale oo dhaqmi lahaayeen oo ay siin lahaayeen waa inay ilaaliyaan asagi oo ay si gooni u ilaaliyaan asagana hayaan dadkiina ka ilaaliyaan asagana ilaaliyaan oo badqafkiisa ilaaliyaan ma oo waaridkiisna u yeeran ogeysiiyaan ay saas la dhaqmaan waa dada isweydiin karo ustaad meesha lagu haynay inta naqanaysa markaas inkay hay'adaha soo qabtaan ma saldhig baa lagu xareynayaa sida la midka dadka waaweyn saldhigyada waxay leeyihiin meelo loogu talagalay sectionadu waxay leeyihiin qaybaylay kala leeyihiin xabsiga markaa tagtid xabsiga waxaa jira dadka maadarka ay leeyihiin xabsiga waxaa jira dadka dambiyada dhexe ay leeyihiin xabsiga waxaa jira dadka dambiyada fudud ay leeyihiin qayb gooni oo carruurta loogu talagalay oo waxa soo dhan muuqaalkoodii midna aysan arkayn baa jirta marka looguma talagalin in ilmuhu ay waxyaabo ay ka sasaan ama maskaxdooda maartay qayb ka noqoto raad ku yeelata marka canugan inta badan waxa laga ilaalinayaa wax maskaxdiisa saameyn ku yeelata marka hadduu arka xabsiga iyo dadkii maadarka wixii canugu yani waa mushkilad baa laftii maskaxda ka saameynaysa marka inta badan meel uu ku ciyaaro maartay waxyaabo kale ka duwan position oo asaga loogu talagalay
way waxa meesha laga yaabeen maartay Afrika inta badan inay soo aad ugu ay soo jirin laakiin dunida waxa meelaha lagu hayno waa meelaha ciyaartii iyo waxyaabihiisii iyo ka duwan oo ilmaha maartay gooni u leh laakiin lagu ma hayn karo looma ogola in lagu la xiro sharcigeeduna ma ogola carruurta in dad waaweyn lagu la xiro meel carruur ama lagu geeyay la haynayo hatta rehabilitation loo xiray loo haynayo halis oo noqon kara wax laga ilaalinayo laga dhaqaayo way oo dadka nooca laga yaabana ku yeesheen saameyn ku yeesheen shacablaad waxay ku doodayeen civic education-ka waa in marka horeba carruurta aan qaangaarka ahayn loogu dhigaa dugsiyada si ay uga foojignaadaan ku dhacida falalka maaragtay halista noqon kara ama qof inay dilaan ama inay mindiyeeyaan wax la midka ah in laga soo bilaabo markan iskuulada waa runta waa hadda markaad shuruucda fiiriso hadda xeerkan CRC gan ka hadlay carruurta kale yani waxa loo sameeyay cartoon isagoo cartoon amal ah ayaa la sameeyay maarta bahalla iyo waxyaabo maartay marka loogu taas loogu talgalay civic education ciyaalka iskuulaadka loogu dhigo marka bahalla la tusahaya iyo waxyaabaha halista iyo waxyaabaha la tusahaya marka waxyaabahaas la iska ilaali bahalkaas iyo ku cunin marka waa muhiim civic education waa qayb weyn oo bulshada oo waxa ku baraarujisa maxaa dambi ah xaasa dambi ahayn يعني هذا ما كان سوى السعودي حصل مرة هي لبكة وحضر دجال كان السعودي وعرورة يعني أنا قبل نسيان لقى حتى رياضة واحد دعها يا مريكرت الماس مركز دي سكولات كي لقانا هيان لو قول شيء وحيابها كذا لين كانت لقى حنا الطور هيان إنه دخل مكرر الكدع كرتو مارتي الككتشف كران دبعتك جاري يسوق جاري كرتو وحلقة بينه سكول ديردان وكتشو كده يعني مركز لقى هذا يا واحد هذا سيفلايزد قفكي مارتي البعنية يعني قف garanaya waxa ka ratimi kara oo ka dhalan kara cirifta dambe waan og yahay oo loo soo sheeg markii loo soo sheego oo sawirro la tuso kaartoono la tuso waxyaabaha la tuso oo anigu maskaxdiisa ku jiray wallahi waxa kugu dhici kara yani uu ka leexanaya uu ka cararaya laakiin dad soogay yani waa halistaas ka dhalan karta waa tahay dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka sumada sharciga marka waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo mid kamid ah ama qaar kamid ah وأصحابته نقرأ بجلسة واحد محمد عبدي إبراهيم أي سؤال محمد أنا صرت البرنامج سؤال شو ستريدين لها واحد هاي وضعنا كيسيس كعروت دمبية الجيران أو كيسيس كحكم دمبية الجيستان ويو في سنة إني سنجاري إيش كي ستة تونسنجيل إني سنجاري ويو في سنة دمبية الجيران أديات سي لو هرتي كرا هرينكاس أستاذ عبد الله ما صدت محمد horta qofka dambiga uu ka dhaca haduu yahay qof qaangaar waa gooni laakiin qofka dambiga ka dhaca qof aan qaangaar ahayn laakiin og taas waxay u baahan tahay in ayada laftirkeedii baaritaan lagu sameeyo waayo waxa aan ka hadlayno waxa weeye waa general hadii qof asagu waxaan uu ku dhiiranahay dambiga ka dhacayo waxaan ka hadlay motivation maxaa qofka waxaan ku xabaar lafteeda waa la ogaanaya waa in la baaritaan lagu sameeyo laakiin qofka waxa lagu xukumay waxa horta qofka dambiga aan galay maqaan gaar ma saqaan gaar ma taas waxay tahay marka koowaad meejarka xukumayo qofkan dambiga leh dambiilaha waxa weeye qofkan laana sharcigu ma tilmaamaha lama tilmaamayo qofkan niyadiisa cid og ma jirto wuxuu u sameeyay ma kasbu u sameeyay ma si kale u sameeyay ma lacag baa lagu siiyay ma cid baa u isticmaashay kaliya waxa priority-ga loo koob horta qofkan mature ma yahay masama hadduu laftirkeeda u isticmaalo inuu yahay loo qabsanay laftirkeeda doqonnimo oo aqal darra Soomaa oo saadam lagu qabsan mahay hadii yani driving force kale jiraan yani in doqon loo soo dhiibay hebka way jirayaan laakiin se marka qofkan dambi uu galo inta badan waxa la baarayaa cid wax ku xariiraysa ilaa yani malacag baa la siiyay mid baa isticmaashay yani crime markuu dhaco ma qofkan crime galay kaliya la soo shaqo laakiin waxa la baarayaa cid waxaan ka dambeysay ilma inta badan waa la isticmaalaa ilma in looga harayo kiiskooda qofkaana galay kaliya ma ahan laakiin waxa la baarayaa wixii ka dambeeyay oo ku hareereysna kiiskan marka cid kasta oo isticmaashay ama lacag siisay ama influence kale u yeelatay ama si kale u samaysay يعني responsibility qayb ka noqonaysa laakiin ciqaabta qofkan uu mudanayo way wax asaga ka saaraya qaan gaar la'aantaas way wax loo qabanayo ma ahan
ما أهان عدي كلا أو فالكان كل جلاد أما أودي رجليسي أما كوس معيسي أنا كيف فكر كرت ما أهان تاس معناه هذا ما سمعناش لا يحسب الدم بيجان وقف سنة قال هدي اللي يري أو قالي عدي كشان والدم بيري نقونيسا ولا لأنه وشيء وإنفستيجيشن بيجليسا بارتان بيجليسا ولا بارها يا معاك وقول لي معاك سمي مو قرن حدي على ركبه يري سان سميه أما نبع حيسي هذا قف كاسك دم بيجواز لي قف كدم بيجي توسكا وقريب ولي أصلا وقف كان كسمي وصيد وقيف توقع نقضي لأن الجريمة ده هدات كقرب قادتد يعني وحكون بحسي حتى فكرة ده كون بحسي قيبات كت حديث كير عمر بن الخطاب حال قوري ينو لو أهل الصنعة دي سقط كان ويل قد لي الصنعة هدي رأي الصنعة ودن شارك جريان يعني مثل عقب بحية مد تصة مد قيب قاته مد حصاد ديبه هدي نقدان وأود الدلية يعني عقابته كمان فكر كده قف كمركز دنبي أوغلي لكن قف كان شيء كأبو حكومة هي شيء المديس لأن شرب حولي هاي قف كان غير كان معه الله مجرم كيسس ودمر قار إن أي سميان قفك لسه إلى أو كان جاري يمكن كيس وين كله كلام نعم مركو قفكو هابريتيشن iyo waxa soo dhan uu ka sugo wala la sugaya xabsiga sharciyan qaba in la sugo ilaa uu qaan gaarayo oo weynaanayo wala haynayo ilaa uu ka qaan gaaro oo responsibility soo gaas waa xabsiga lagu haynayo waa dhageystayaal waxaad la socotaan barnaamijka sunnada sharciga oo idinkaga imaanaya idaacada himilo ee magaalada Muqdisho qaybihii dhexe barnaamijka ayaan ku guda jirnaa marka waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Faadumo Xaamid ee Seebaad Musadow هذا ما سنتهاي معك حرا سؤال إنا ويكي حال هذا عروف تسيء لخن علمنا وكي إنه حبسي أو إن حبس لا رواية سمسي لخن علمنا وسماء صح ما سماء هي يعني عروف يعني هل ما لو ما نبدأ إنه كولج لو سماء أو سي وح لو برو ليش إكجران إن وح لو برو سماء هي حبسي يدي لكي أو لبعض وادمش إنك شيء معنا فكرة تاسي عن سنة لكن وحافي عناد إنه كل جلوس من عروف تاسي يعني واحد كذا إن لا سمايو نحن علين ما كهر مسكدي ممكن دمي كلام ما كي دمي كلام كده إن لا سمايو أستاذ مرة أنا قال شيء هتياسيف هذا ما صنت هاي حبسك عرورته أن كذا إنه هو يهبه إن عرورته وحلا بروه waxyaabaha falka galeen loo sharaxo oo waxyaabaha ka dhalan kara loo sharaxo oo ayaga wax la baro xabsiga inta badan ma ahan qol yar oo qofka lagu haynayo ma ah yani qofka waxa laga yaabaa tasawirto qol yar oo qofka lagu haynayo xabsiyadu waa meel wax lagu barto dad baa jaamacado uga baxa marka caruurtana waa goonidooda way leeyihiin yani waxay leeyihiin in wax la baro shay leeyihiin waxa la haynayo waxa weeye in la baro qofka maskaxdiisa laga dhaqo waxyaabaha galay maskaxdiisa maadaama qof korhayo uu yahay oo yar wali inay maskaxdi wixii ay sagdagin ee laga dhaqamaarto oo noqon qof criminal oo noqon ee uu noqon qof hadhow bulshada ku noqon karo caadi ah oo aan dambi galeen inuu yahay way waxa la rabaa dhaqan celintu waa ma ahan qofkan xasan taray meel la fariisiyo lagu haynayo ma aha ee qofka waxa jeedo Allah ayaa wax la baro jeedo Allah ayaa waa dhaqan celin waa waxbarid meesha lagu hayaba waxbarid waxa lagu hayo xabsiga uu ku jiraba waa xabsi wax lagu barahayo oo laga ilaalinayo qoladii influence ku yeertan hesho wixii uu ku soconayo inuu ilaabo inuu ilaabo la rabaa oo ka dhaqan maskaxdiisa ay ka baxdo markii meesha xogaa lagu hayo arrintan oo maaragtay caruurta aadaadka ka dhawaajinaysay ahayd xitaa markii la sameynayo maaragtay kiisaskooda markii la gelayo si public looma galo waxaa yani hagaajisa laga maartay hagaajiya macnaheedu waxaan u fahmay يعني qofkan image-kiisa bari kamal markuu koro si aanay bulshada u dhihin waa dambiilihii shalay markuu yaraa yani gacan fududaay maanta yani walaalay gudoomiyaha maxkamadda ayaa gooni loo siiyay inuu kiiska caruurta galo oo asagoo uu decide gareeyo marka mana ahan sida kiisaska kale waxa la saaray caruurtii hala dambi gal laga soo qayb hal ogaaday midna dhageysigiisa midna lama ogola waxyaabaha special ka loo sameeyo kamid yihiin oo loo ilaalinayo bulshada canugan hadhow inuu waxa raadkiisa la arkin bal raba hadhow oo isoo bulshada inta badan ay soo qaanin oo soo muuqanin oo hadhow qof caadi oo bulshada ka midna uu noqdo marka waxa loo ilaalinayo consideration gooni la siinaya qof yani ma ahan dambiga loo xisaabinayo oo galay marka waa tartiib qof loo diyaarinayo wixii laga ilaaliyo oo laga dhaqo weeyo tartiib marka qofkii madaxda ka ahaa waxa la asay kaliya
ayaa xukunkooda galahaya oo gacanta ku dhigahaya marka waa special gooni aad baad u mahadsan tahay Faaduma waxaan filayaa su'aashii ay nala wadaagtay in aad ka shaafisay salaam dhegeysta adiguna waa soo wadiin kartaa aragti ama su'aal wixii kaaga baxay waan kan adigoo aragtidaada nagu soo gudbinayna nambarka idaacadda waa 696224 eber 3 ama eber 696224 eber 4 marka ustaad Cabdullaahi marka waxaan rabaa xeerarka dalka sidee ayay u nidaamiyaan marka kiisaska ay ku lug leeyihiin carruurta aan qaangaarka ahayn daayin qabaha ka dhawaajisay waa mahadsan tahay Zakariya waxay u nidaamiyaan qofka childka ama qofka dhalinyarada yani marka dambiye maxkamadaha la qaadayo dambi lagu soo eedeeyo booliisku keenaan koow horta kiiska waxaa galahaya gudoomiyaha maxkamadda gobolka ayaa kiiska si gooni u galahaya markuu galo hadduu kiisku uu maadhar yahay ama uu yahay 7 years xabsi ah kiis mudan hay uu yahay yani waxa la isku dayaa qofkan in la hayo dhaqan celiyo oo la hayo laakiin qofkan waxaan yiri looma qabanayo oo lama dhahayo jariimada uu galay yani consequences ama waxa ka dhalan kara ayuu og oo lama xisaabinayo marka gudoomiye markuu galo kiiskan wuxuu raacayaa markasta nidaamku siinaya in canugan maslaxadiisa waxa ay ku jirto ayuu siinaya kow lambar 1 taas markasta ma dhaafaynin hadii uu arko inuu iska sii daayo uu sii deynaya oo dadkii marka wixii uu arko xalka uu arko markuu arko interestiga asaga gudoomiye markuu dambiga qaadayo canugan lagu soo eedeeyay wuxuu fiirinaya markasta maslaxada ilmahan ama qofkan aan qaangaarka ahayn ee dambigan loo haysto waxa markasta la siinaya best interestiga ayaa lambar 1 la siinaya oo la marinaya waxaana gooni u leh oo qaadahaya gudoomiyaha gobolka maxkamadda gobolka hadda gobolka Banaadir oo kale gudoomiyaheeda ayaa si gooni loo siiyay oo yira waxa maamulka qofka idaariga ah meesha joogay ayaa kiiskaas maamulahay markasna waxa consideration la siinaya ilmahan maslaxadiisa in la fiiriyo waxa maslaxad ugu jirta asaga waxa maslaxad ugu jirto maxay tahay waxa la tiray xeerka ciqaabta oo ciqaabahayay waa sharcigan lagu tiray jafaliga carruurta yani in marka ciqaab laga ilaasho ilmahan maadaama uusan ahayn qofkii qaangaarka ahaa oo waxa responsibility-gan ogaa waxa ka dhalanaya in loo diyaariyo hadii marka qofku ay noqoto habitual oo ku soo noqnoqdana oo caadaysan noqdo markaas waxa lagu haynaa xabsiga ilaa qofku qaangaar ka noqdo qaangaar marka ka noqdo waa la sii bacda lagu xisaabtamaya ustaad marka ma dhacdaa marka qaar in dawladdu ay yani ay magdhow ama caawil celin ka bixiso يعني فل juvenile يعني under ما كانوا the age key لو تلقى ilmaha in lagu xukumo soo qaan gaarin uu ku kacay sida maartay dab uu qabadsiiyay goob ganacsi ah dawladdu ma dhacdaa markaas inay magdhow siiso maartay qolihii maartay sheek dacwada la yimid maadaama xukunka ba lagu qaadi karin cunugaas yaka horta waxa markay waxyaabaha ay dhacaan oo costiga marka sameeyaan ma dhaco waxana waa qofkan ciqaabti waxa laga hadlayo waxana waxa weeye wixii ka ratimay wixii uu sameeyay hadii ma dhacday magtiisi qofku waa leeyahay hadii hanti burburtay hantidii waa leeyahay hadii marka cid asaga caylada waahid ay bixin weydo markaas waxay u noqonaysaa idaarada meeshaas maamulkaas ka taal in ay markaas ay maarayn lahayd ay u maarayso laakiin number 1 waxay aadaysaa cid asaga marka responsibility-ga lahayd oo ilmahan lahayd ay waxay aadaysaa falkii uu galay wixii ka dhashay qaansheegta loo qaansheeganaya sida hadda mesela askari hadda dambi gal waa dawladdu wax Soomaa dawladdu waxay kula xisaabtaysaa dambiga uu galay laakiin se wixii ka dhaco ka ratimay asaga laga leeyahay ama caayada sala aadam cid ka bixinaysa asaga laga rabaa inuu bixiyo dilo dhaawac geysta jirib dhaawac marka la xukumo magti laga xukumo qofka asaga laga rabaa marka way kala duwan tahay qofkan wixii ka dhashay wixii uu soo damage ku qofku wixii damage ka asaga iskale waa la bixinayaa laakiin waxa aan laga hadlayo qofkan ciqaabti lama siin laha way waxa laga hadlayo waxa laga hadlayo waa ciqaabti liability war kasta waa jiraya waa in la bixiyo qofkii xuquuqda iskale xuquuqda waa in xuquuq meel ma dhacay fatay dhageystayaal waxaad dhageysanaysaa barnaamijka sumada sharciga oo idin kaga imaanaya idaacada himila magaalada Muqdisho qaybihii dambe aynu marinaa marka waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan soo dhawow aad ama santiin ustaad waxaarweyna weydiiyo waa su'aal su'aashooda waxay tahay hore wuxuu ugu soo hadlay in confession uu jiray
uu jiro oo caruurta ku saabsan oo dunida inteeda badan ay saxiixday aad iyo aad haddeerna waddankeena uu saxiixay laakiin horaantiisii uusan saxiixin marka ustaadku waxaa rabay 2015kii 2015 waa waqti dhow conventionkan xilli hore soo baxay sababihii Soomaaliya macnaha ka reebay inay conventionkan saxiixdo inuu noo saxiixo oo isha faahfaahinaysa Soomaaliya ay talabaad su-aasha labaad waxay tahay ciyaalka markay dembiyada galaan iyagoo yarar hadday dembi galaan qaarkood wuxuu sheegay in nala sugaayo waqti markay weynaadaan marka hadhow markay weynaadaan ciqaabtii dembiga sidiisii ahayd oo ciqaabtiisii oo dhammaystiran meel uu xukumaa maadaama ay yar ay soo galeen mase waxaa loo sameynayaa macnaha ciqaabtii barkeeda oo kale ayuu qofkii yeelanaya maadaama soo yar dembiga hore usoo galay oo waqti la sugaayay crime-kii dembiga punishment-iyo sideedii ah wuu la kulmayaa mase waxyaabo kaloo jabso waa mahadsan tahay cabdiraxmaan waa mahadsan tahay su-aasha koowaad xeerkan caruurta oo Soomaaliya ay saxiixeen waxay u saxiixday waxa weeye waxaa xilliyada la saxiixi lahaa waa xilliga murmurnay 90 meelaas marka burburkeena ayaa qayb ka noqday inaan saxiixin laana waxaan ka maqnayn saaxada dawliga oo dhan waa ka maqnay marka asbaabta Soomaaliya u saxiix weeyday waxa weeye kaliya inaan dawladda Soomaaliya ay maqnay wax kale sabab kale u diiday ma jirin meesha Mareykanku u diiday inuu hoos imaado hay'adaha shuruucdan hoos imaado lagu xisaabtamo soo culay super power baanahay waxaan anaa dadka korka ka xukuma anaa u yeersha marka aniga in la xal weydiiyo ma anaa wax saxay marka wixii aan saxayeen aniga kor imaan maayo inta badan waxaa diida golaha sanadka ayaa diidan oo meel mari laakiin xukuumaddu way soo galaan qayb ay ka soo noqdaan sida heshiiska environmentalka maxkamadda ICC waxay ka soo diyaariyaan laakiin baarlamaankooda ayaa diida sharci kastana waa in baarlamaanku uu ogolaado markaasna inuu la jaan qaado waayo shuruucda waddankaas markay ayagu meel mariyaan waa in shuruucda waddankaas uu la jaan qaado sharcigaas oo shuruucdii kula shaqeyn lahaa inay u sameeyaan marka sababtaas waay haynta oo canuga la haynayo yani canuga asagoo weyn looma ciqaabayo fal uu yaraa wuxuu galay yani ciqaabtu dib uma noqonayso laakiin waxaa loo haynayaa marka sidii inta waa la haynayo waxa loo haynayaa weeye in la soo ilaasho dambiye kan uusan galin oo wixii ku sii soconin laakiin markuu qaan gaaro hadduu dambi galo waxaa loola xisaabtamay sidii qofku weyn markaas hadduu marka lagu xisaab lagu qaadahaya ma ahan in lala sugayo in la ciqaabo taas ma ah lama sugayo ciqaab in loo ciqaabayo ma waxa loo hayo waxa loo haynayaa maslaxadiis استعملها هذا ما استعي وحنا أنا قاعد يقدر برامج كحنا ما كنا نسوي أفمرنا سؤال شاء سيدي أي تام كإن لو ما رأي حكونا ذا كسر بحكيسس كعروت عن كانجار كأهين إيه هباب كأقوى نكسن رقم قلنته رقم علنته عليه أنا رهدي هي سكريا مع سنت هاي هباب كأقوى نكسن أي تهين حكونا ذا لا ما رأيه يعني مركز توحان نري وراء أفشة يدي بان كسر علينا هي حكم كمركز عنو قال مرسينا هي وحي أسجع مصلحة يسكتشرتوا بريورتي مركز توح كستو دعي وح كول لفرس السينة هي مصلحة المهن معيت عيال السينة هي وح بريورتي قال هوايا وف كان دم بقى إنجلي مصلحة يسه عيال نمبر 1 أن قانجار كأهين aan majuurka ahayn aan fahansanayn falkan ka dhacay ciqaabta uu lahaa waxa uu ku dhici karay aan lahayn ayaa waxa la siinayaa asaga maslaxadiisa maxay ku jirtaa marka waa dhaqan celintii la siiyo in la hayo la ilaaliyo la koriyo maskaxdiisa la dhaqo wax la baro qaabkaas iyo qaabka loo maareynayo laakiin lama dhahayo ciqaabtii lagu fulinayo ama waa loo hayray wala la sugahayaa ما أهن أنت وكوين أنا هي وإن أستجاب مركب مصلحة للسياق لا إله شيء مصلحة لسه ما دابه وياهي قف أن جرنين وحيابها وكل عي أفضل كانوا السمية قف أن جرنين ما دابه وياها وإن أستجاب مصلحة لسه كول لصور مريو وإنترسيج اسم لمبر 1 لقد جوا سوي الماس طبعا مصلحة غير كنا ذكرت
hadda jeer cafiskuna wax iska وعفسه شرق عليه هاي إن كودش لقوا سيدين إن كودش لا لقوا سيدين لا هذا واضع كرت قف كاس dhegeystayaal waxaan jeclahay inaan intaas kusoo afmeero barnaamijka tusmada sharciga oo aan kuman malayn uga mahadnaqayo martida barnaamijka ustaad cabdullaahi aadan shire oo nala gorfeynayay ciwaanka ah habraaca kiisaska carruurta aan qangaarin sidoo kale waxaan jeclahay inaan mahad celiyo asxaabta kale ah cabdiraxmaan maxamed cali iyo maxamed cabdi ibraahim iyo faaduma xaamid ciise oo barnaamijka nagala qayb galayay dhegeystayaashii aanan u suuragelin barnaamijka inay soo tiigsadaan iyo kuwii jeclaa inay kasoo qayb galaan labadaba waan u mahad celinaya waxaan u rajeynayaa in qaybaha ama barnaamijyada dambe ee barnaamijka tusmada sharciga ay nagala qayb gali doonaan barnaamijkii tusmada sharciga waa intaas waxaan askari xasan maxamed tani kula dambeeyay barnaamijka nafdo sidaa iyo amaan allah magurxamo libaaxii dadku gacashanaya garboodkay cayaaraan shabeelkii wax goy